Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Axlaam Cooking. Maanta waxaan sameynayaa malawax yaroo fudud oo chocolate leh. Waxaan iminka ku bilaabay 2 xabo beed ah ama ukun. 2 xabo beedka waan qoyshiyaa. waxaan ku daray sonkortii koob sonkor ah ayaan ku daray ku qoyshiyaa beedka sonkortii ku qoyshiyaa ama qasaya aad buu fudud yahay. iminkan waxaan ku daray qaado iyo badh ama mulqacad iyo badh ah baking powder. waxaan kaloo ku darayaa mulqacada badhkeega yar oo ah milix. waxaan kaloo ku darayaa vanilla. kulkiisaan ku shubtay xoogaa adu ilaa mulqacad leeg ama mulqacada haaf mulqacada uun buuxin ay leegtay. intaasaan isku qoyshiyaa isdhex gelinayaa. waxaan ka binayaa buurbuurka si aanay iga yeelan buurbuur. halkan waxaan ku darayaa subagii iyo saliid aan isku soo daray 2 mulqacdood saliid subaga iyo saliid buluug baan leeyahay subaga. intaasaan isku qoyshay. waxaan ku daray 2 koob iyo badh oo caano ah. waxaa la rabaa malawax weeyaan inuu jilicsanaado aad u jilicsanaado ayaa la rabaa sida laxooxda oo kale ama uu ka jilicsanaado saas weeyaan waxa doonaysa inuu ku soo baxo. iminkan waxaan ku darayaa daqiiqdii waxaan ku daray 5 koob ama bakeeriga shaaha ay leeyahay koobkaan ku qiyaasayaa 5 ayaan ku darsaday bakeeri. iminkan waan dubayaa waa non stick baan uma baahna saliid iyo wax la mariyo. markaas wixii caanihii badnaan kusoo dardartay sida jilicsan bay igu soo baxay halkaas. sida quruxda badan ayuu igu soo baxay markii aan soo dhameeyay jilicsan. waad aragtaan iminkan waxaan marinayaa chocolaatadii sidaasaan u laabay sidaasaan marinayaa kadibna waan laabayaa sidaasaan u laabayaa.
waa kuwa markaan soo wada mariyay sidaa quruxda badan ayay nigu soo baxeen. Fadlan subscribe, like, aad baad u mahadsantihiin.